بسم الله الرحمن الرحيم أدبان إذن سلامية دمانتين ميلولات شوكتان كسو دوادا برنامج كيني ويدين يورعلين حلقة دي سيشن يطبناد ويدين تمانتا وحيلا حريدا وحاقرسكا لأن يرى بدن با وحي سو ويديسي سؤال ورنايسا سيدي الله دورتا بوكتا وحاقرسكا بوكتا آخرين تنبودن طبعا بوك وليبا ممنا inaad waqti 3 saacadood 4 saacadood 5 saacadood waqtigaaga aad geliso dhalinyaraduna badi buugta inta badan ay ka daba dhacaan waxay u badan yihiin buug aan noqday laakiin ay dhici karayso marar badan inaanay aqoonta gudaheeda loogu tagayo aanay u mudnayn qofku waqtiga uu geliyay marar badanna xagan galbeedka waxaa la doortaa buugta New York Times bestseller listiga ku jira oo ay dhici karayso marar badan inay jiraan buug aad uga qiimo badan oo qofku wax badan adduun aragiisa ballaarinaya qofnimadiisana kobcinaya habdhaqankiisana wax badan ka bedelaya indha badan oo u furi karaya inay jiraan oo aan listiga aan soo gelin marar badan buugu inuu caan yahay ama uu bestseller listiga ku jiro kama dhigna inuu buug qiimo badan yahay marar badan waxay ku xidhan tahay qoraaga buuga qoray sida uu u suuq geeyo iyo madbacada buuga u daabacday sida ay suuq geynteedu heerka gaarsiisan tahay iyo sida ay caanka u tahay laakiin waxaa jira buug runtii akhrin mudan oo siyaabooyin kale ay ku helaan dadka aqoonyahanka ama cilmiga jecel ama akhriska jecel akhriska la nool waxa jira habab kale oo ay buugaagta ku helaan qaar kamid aan jeclahay inaan markan muuqaalkan idin kula wadaago arinta caanka ee muhiimka ah qofku uu buugta ku doorto waxa kamid dadka aqoonyahanka ama dadka wax akhriska jecel ay ku doorto waxa kamid mawduucan ku saleysan yahay inuu jiro buug ay isleeyihiin markaa waa danaynaysa mawduucan iraade وسلي قفك ودنينيا تصالو كله فقه محوها سياسة فقه السياسة وكله فقه الأولويات وكله سير كهدين نقطة علم نفسك تاريخ فني جمرك عادي وأدونيس تاريخ وكله محدونيس إن هذا وحكب وجاته تاريخ يوروب وكله البحني مديدي البحنوي موين كدنيا صوامري وارتنا حكوا وجاته ما تاريخ دي أمويين ترتا إن هذا وحكوا وجاته ما تي عباسيين ما تجيسك anigu hadda aynu ku noolnahay taariikhda laftigeedu iyada muwaadiic si kala taariikhda aad doonayso matii xarakaadkii islaamiyiinta mid ku salaysan ba matii waxbarashada ku salaysan ba matii siyaasadda mid ku salaysan ba marka funuunta faraha badan iyo muwaadiicda faraha badan qofku mawduuca uu doonayo marka uu xiiseynayo cid aqoon u leh inta u tago inuu yiraahdo buugta mawduuca ugu muhiimsan ee ummahaadka u ah tilmaan yani fanni walba ama mawduuc walba waxa jira cid aqoon u leh oo marka ka agdhow oo aad u tagi karayso wax ka wareysan karayso oo weydiin karayso maanta waa inoo fududeeyay siyaabooyin badan waxa jira xitaa social media dad badan aqoon-yahan oo aynu friend list inagu jira oo in weydiin karayno mawduuca inta tiraahdo mawduucaas aan u baahanahay buugta ummahaadka u ah ama buugga ugu horeeya ay tahay inaan qof heerka joogo inuu akhriyo muxuu yahay waa habka koowaad ee ay aadka u wanaagsan weligeedna soo jirtay qofku kutubta ku dooran karayo habka labaad ee aad kutubta ku dooran karayso waxa weeye qoraa mucayana qoraayadu isku mid ma aha qoraayo waxaa jira aad buug kastoo ay soo saaraan aad jeclaysanaysa inaad akhriso waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay hab qoraalkiisa waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay muwaadiicda uu wax ka qoro waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay hab fikirkiisa qoraayo badana waxaa jira anigu aan kutubtooda akhrisanayo kutub kastoo ay soo saaraan waxaa ka mid ah cabdikariim bakaar oo kale oo mufakir islaamiya oo reer maaragtay suuriya oo sacuudi carabiya ku nool waxaa jira Robert Greene oo kale kutub fara badan oo uu kamid yahay the 48 laws of power iyo mastery iyo the 33 strategy of war iyo book fara badan oo wuxuu leeyahay aynu ku tilmaanay qaar kamid ah barnaamijka fikradii book oo aad muhiim u ah Robert Greene book kasto maanta qoro inaan akhriyo u badan tahay waayo waxaan garanayaa hab qoraalkiisa waxaan garanayaa fikirkiisa waxaan garanayaa meelaha uu
sida uu wax u qorayo mawaadiicda wax ka qoro waa mawaadiic aan daneeyo marka qoraayaday ku xidhan tahay Jasim Sultan oo kale waa Kuwaiti Abbas Aqad kutubtiisa oo kale Ibn Qayyim oo kale Allah musta'an soo qabo Mustafa Sadiq Rafi'i oo kale Manfaluti oo kale buugta waxa jira qof qoraa oo aad jeceshahay hab qoraalkiisa iyo fikirkiisa iyo buugtiisa oo buug kasta isagu uu leeyahay marka aad jeclaanayso haduu dhintayna aad buugtiisa aad wada akhriyayso hadii uu nool yahayna buug kasta soo saaro aad akhriyayso marka habkan waxa weey waa hab labaad oo qoraaga credible-ka ama aad jeceshahay qoraaladiisa iyo buugtiisa aslada waxbaad ka faa'iideysa iyadana waa hab labaad oo qofku doonaya inuu qof akhriya inuu noqdo uu ku dooran karayo habka saddexaad uu ku dooran karayo waxa weeye inuu book review iska la qoro kale laga qoro buugta Amazon oo kale waxa jira dad xitaa buugta aadan ka iibsanaynin mawaadiicda iyo buug fara badan oo waxa ku jira kumanaankuna review laga qoro qaar baa 5 star qaar baa 4.5 star qaar baa 3 star marka waxaad ka eegaysaa walabaad buug xitaa ka iibsanaynin waxaad eegaysaa review-ga laga qoray dad badan baa waqtigooda intay qaataan buugii soo akhriyay review ka qoraya muxuu ka hadlayaa muxuu ka gaabiyay qoraagu muxuu ku fiican yahay hab qoraalkiisa marka book review oo kale website fara badan waxa jira book review-da qora YouTube-ka waxa jira dad badan oo barnaamijka fikradii book oo kale dadka kula wadaaga fikradii book hadafkeeda anu markaan sameeyay waxay ahayd inaan ugu talagalo in dhalinyarada ilaan book maanta hadii lagu yiraahdo book akhriyo la yiraahdo buugtina dhalinyaradu aan garanin halkay u doonan lahaayeen dib badan bay ka mariyaan marka in buugan maanta anigu aan jeclaystay anigu aan akhriyay walow uu ay buugta anu wadaan ilaa iyo hadda aan ku soo bandhigay barnaamijka fikradii book uunay tahay buug yar oo kooban janib yar oo kooban oo kamid ah jawaanibta aan wax ka akhriyo uu yahay oo jawaanib fara badan oo aan jeclahay inaan idin la wadaago mustaqbalka dhow haduu Ilaahay yiraahdo ay jiraan laakiin hadana in buuga markaan waan akhriyo fikradaha buuga ku jira markaan kula wadaago oo buuga nuqsaantiisa iyo meeluu ku wanaagsan yahay iyo afkaarta ku jirtaan kula wadaago waa jeclaysanaysaa buugan inaad doonayso inaad akhriso inaad waqtiga u qalmeen waad kala ogaan karaysaa marka book review-yada meesha la yiraahdo Goodreads oo kale dad badan waxa jira active ah oo qoraa ah oo wax akhriya dad badan waxa jira qoraaya ah oo iyagu laftigooda active oo buugta akhriyaan aad ka arki karayso star u sameynaya oo review gareynaya oo qaar 4 star siinaya qaar 5 star siinaya marka book read oo kale Amazon oo kale NPR oo kale NPR ta barnaamijta NPR ku xajir barnaamij buugta xilliga muhiimka ah ay qoraayada qaar kula wadaagaan marka iyo dadka barnaamij soo jeedinaya marka book review-yada aad bay muhiim u tahay meelaha ugu badan ee dadku ay wax akhriya ay buugta ka raadsadaan bay ka mid tahay habka afraad ee aad ku heli karayso buug akhri mudan waxa weeye in cid ay kugula taliso cid aad aqoonteeda iyo hab xulashadeeda iyo aad ogtoomayso aad ogtahay inay waqtigeeda ka faa'iideysanayso buugta ay kugula taliyaan waa hab afraad oo aad ku ogaan karayso aad ku dooran karayso buugta tayada leh in badan oo kamid ah culimada iyo aqoonyahanka website-da leh waxay leeyihiin list book recommendation list bay leeyihiin anigu si gaar ah waxaan u xiiseeyaa culumta bulshada oo kale si gaar ah psychology oo kale marka anigu aan danaynayo waxa jira Jordan Peterson oo kale wuxuu leeyahay kontameeyo 60 book baa jira oo listiya oo isagu noloshiisa fikirkiisa bedeshay oo wax ka faa'iiday oo kula talinayo dadka dhalinyarada ama aqoonyahanka aba oo kula talinayo Hamza Yusuf oo kale waxaan maleynayaa ilaa iyo 150 book baan u maleynayaa listiya inuu ku leeyahay Goodreads oo kale website-ka Goodreads markaad gashid aad ka heli karayso dad badan oo qoraaya iyaguna saas oo kale waxa jira list dhan ay sameeyeen oo ugu talagaleen in laga faa'iideysto culimada ducaada oo kale Maxamed Al-Awadi oo Kuwaitiya waxaan xasuustaa barnaamijkii ma xasuusta barnaamijku laakiin barnaamij TV ka soo gali jiray mid kamid TV-yada xalqa walba waxa jiray book uu ku soo gabagabeyn jiray oo uu ku talin jiray dhalinyaradu inay akhriyaan marka hababkaas aad ku ogaan karaysaa aakhirkan waxaan jeclahay inaan qof walba idinka kamid ah oo doonayo inuu qof muthaqaf ah
oo adduun aragiisa iyo fikirkiisa ballaaran yahay oo xirfadihiisa iyo naftiisa raba inuu tayeeyo aqoontiisan raba inuu kobciyo waa inuu yeesho list waa inuu yeesho listigaada doonaysa maanta akhrin biriha akhrin bish soo socota akhrin sanadka soo socda akhrin hadaa doonayso laakiin list waa inaad leedahay oo buugta aad akhrinaysid waxaa jira buug fara badan oo qiimo leh oo qoraaga uu tilmaamayo oo soo xiganayo buugtaas ko listiga ku darso buug reviewada muxuu ahaa hababkii haddaynu ka sheekaynayo ee afarta ahaa buugta aad ku heshay oo dhan list samayso qasab maaha buugga hadda aad doonaysa inaad akhriso uun inaad doorato ama aad raayso habkii aad ku dooran lahayd inaad falowgeeda gasho laakiin inaad listi leedahay 20 ilaa 100 buug ah oo aad markastoo aad doonayso buug inaad akhriso waliba waxyaabaha muhiimka waxa weeye inaad waxaa dhici karaysa inaad buug cid aad kugula talisay intaad list intaad gashato aad dib waqti dambe intaad aragto aad buuggan sababtii aad u dooratay aad garan weydo way dhacdaa dadka quraada inta badan way ku dhacdaa halka waxaan kula talinayaa buug kastoo aad listiga ku darsanayso inaad qorto aad ku darto sababta aad buuggan u dooratay cidda kugu dhiirigelisay mawduuca uu ka hadlayo waxaad ka faa'iideyso note yar raaci si hadhow marka aad liiska dib aad u eegto ay kugu fududaan karayso inaad buuggii sababtii aad meeshan liiska aad u gashatay aad muxuu ahaa judhiiba aad fahanto marka inaasan kusoo koobaya kolay hadduu ilaa yidhaahdo xalaqaad dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa habka buugga loo akhriyo iyo mawaadiicda kale la xidhiidha iyo habka fawaa'idda lagala baxo iyo mawaadiicda kale la xidhiidha buug akhrinta inaasan kusoo koobayaa xalqadeena maanta inta aan barnaamij kale iyo mawduuc kale aan hawada dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa khayr aad u fara badan waxaa la akhriyo inta maan ku gaajaysan yahay guuli waa weli السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.